Your Excellency, Raila Omolo Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya isla markaasina ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ODM midowga Afrikana u qaabilsan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ayaa khudbad ka jeediyay casuumad uu isagu u fidiyay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee booqashada ku jooga wadanka Kenya. Raila Odinga ayaa khudbadiisa waxa uu ku bilaabay President Mudane madaxweyne Muuse Biixi Abdi, wasiirada ka socda Somaliland, ministers from Somaliland, marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwey, ladies and gentlemen. nabad iyo naxariis iyo barakada eebe korkiina ha noqoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are delighted farxad ayay noo tahay inaanu soo dhaweyno marti nooga timi geeska Afrika, of Africa gaar ahaan Somaliland. from Somaliland. xaqiiqdii waa arrin taariikhi ah. This indeed is a historic occasion. waa markii ugu horeysay ee hogaamiye ka socda dalkan soo ifbaxay From Somaliland that emerging country, lagu casuumo dalkan Kenya oo booqasho uu ku yimaado. mar kale soo dhawow madaxweyne. welcome once again, Your Excellency. sida aan horeba u sheegay, Somaliland iyo Kenya waxa ay wadaagaan xiriir muddo dheer jiray oo taariikhi ah. As it has already been said that Kenya and Somaliland enjoy long historical relationship. labaduba waxaa gumaystay They were Ingiriiska. both British colonies. Soomaaliduna waxay u qaybsanayeen dhowr qaybood oo kala ahaa. Somaliland was divided. Soomaalida There Talyaanigu was gumaysan jiray Italian Somaliland, qaybta caanfarta iyo ciisaha oo markaasi uu ula jeedo land of Djibouti. Afars and Isas. British Somaliland, Soomaalida Ingiriisku uu maamuli jiray iyo Soomaalida qaybta ka ah Itoobiya iyo kuwa la midka ah. in Ethiopia, and so on and so forth. kadib markii madax banaanida la helay, Then independence came and British Soomaalidii Somaliland Britishku maamuli jiray united with waxay la midoobeen qaybtii kale ee Italian Talyaanigu maamuli Somaliland. jiray, waxaana ay sameeyeen Jamhuuriyadda the Soomaaliya. Federal Republic of Somalia. waqtigaasi ka hor dad badan oo Somaliland ka soo jeeda But before that ayaa time, yimi there Kenya, were very many people from Somaliland coming to Kenya, kuwaas oo Ingiriisku uu keenay halkan. being brought by the British. It started when Lord Delamere came from the Horn waxaana bilaabay arrintaasi ninkii la odhan jiray Lord Delamere oo ka mid ahaa Somaliland saraakiisha ka into tirsanaa Kenya. maamulkii Ingiriiska. Then after that, intaasi kadib Ingiriisku waxa uu hubeeyay Soomaalidii uu ka keenay and Somaliland. the British had introduced the Somalis to guns and so on. They recruited people from Somaliland iyo kuwa kale oo uu ka keenay Nuubiyiinta together Suudaan. with another team from Sudan, the Nubians, waxaana uu sameeyay ciidankii la odhan jiray King's Africa to Rival. come. And they're the ones who formed the first King's African Rifles, KR. iyagoo markaasi la saftay militariga Ingiriiska xilligii dagaalkii koobaad ee dunidu u socday. So they came here and they fought along the British military in the First World War. After that, intaas kadib Soomaalidu waxa ay degsiimooyin ka samaysteen towns. magaalooyinka Kenya. haddii aad tagto Kisumu, Soomaali ayaa xaafad ku leh. If you go to Kisumu, you have found Kambi Somali. haddii aad tagto Kakamega, Kakamega, there's Kambi Somali. Soomaalidu xaafad ayay ku leeyihiin. In Eldoret, there's Kambi Somali. marka aad tagto Eldoret, way ku leeyihiin Soomaalidu xaafad. Nairobina waaba tan oo waxa ay ku leeyihiin Islii. In Nairobi here, there's Isili. So, intaas kadib waxaa si rasmi ah ay u noqdeen muwaadiniin Kenyaan ah markii dowladda Kenya ay heshay gobonimada. sidaas darteed hadda waxaan leenahay muwaadiniin Kenyaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Somaliland. and eventually they became Kenyans at independence. So now they are Kenyans of Somaliland origin. markii Soomaaliya gobonimada ay heshay kadib, ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Soomaaliya So when independence came, ayaa casuumay aabbahay Karamogi Odinga oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Kenya. invited my father, the late Jaramogi Oginga Odinga, who was then the vice president of the Republic of Kenya, to tour Somalia. waxa uu tegay And Muqdisho. he went to Mogadishu. sidaan ka arkay sawirro la qaaday xilligaasi oo ahayd 1965. I was later on shown pictures which were taken at that time, 1965. Somaliland xilligaasi waxbay tabanaysay waxaana ay la kulmeen
xaaladii isfaham la'aanta ahayd ee kala haysatay labadii Cameroon Cameroontii Ingiriisku uu gumaysan jiray iyo Cameroontii Faransiisku uu gumaysan jiray Somali as a republic. The experience of Somaliland and their brothers down the south is very similar to the British or the British English Cameroon and the French and French Cameroon. Exactly a similar situation exists in Somaliland. xaaladaasi la mid ah ayay ku jirtay Somaliland. Then there was conflict. Isqabsi ayaa jiray xilligaasi. There's conflicts all over. sidoo kale isfaham la'aanta ayaa xilligaasi si guud waxay uga jirtay adduunka oo dhan ka bilow gidaarkii Berlin around that time with the fall of Berlin Wall burburkii Soviyetka the great Soviet Union collapsed oo aad garan kartaan intii wadan ee ka go'day many countries emerged out of it iyo Yugoslavia oo burburtay Yugoslavia also collapsed dalal badan ayaa halkaas ka soo dhaxbaxay former Federal Republic of Yugoslavia many countries emerged oo ay ka mid yihiin Bosnia Herzegovina Bosnia Herzegovina Slovenia you talk of Slovenia soo qaado Croatia you talk of Croatia Kosovo you talk of Kosovo xitaa ku dar Czechoslovakia even Czechoslovakia oo ka go'day Jamhuuriyadda Czechia iyo Slovakia Czech Republic and Slovakia sidaas awgeed isqabsiga Soomaalida midowday dhex yaalay waxba kama duwanayn isqabsiga ka dhex jiray dalalka kale ee adduunka ee aynu soo sheegnay what has happened in Somalia or what has happened in Somalia is not different waxaan la kulmay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya I met the then prime minister sidoo kalena noqday madaxweynaha Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Somaliland it's a Mohammed Igal when he came here and he invited me halkan ayuu yimi waxaanu igu casuumay inaan imaado Somaliland iyadoo ay jireen caqabado iyo duruufo badan haddana waxaan u safray Hargeysa and against all the odds I traveled to Hargeisa aniga oo sii maray Addis Ababa iyo Diridaba right into Hargeisa hal usbuuc ayaan halkaas ku sugnaa one week there sidoo kalena waxaan tagay dekedda Berbera port of Berbera waxaan soo arkay caqabadaha ay wajahayeen dadka Somaliland and I saw the challenges that we are going through also saw the kind of devastation sidoo kale waxaan soo arkay nooca burburka ah ee dalka gaadhay civil war markii dagaalku bilaabmay militariga Soomaaliyana ay kiciyeen diyaaradaha miiga ah ee ka duulay madaarka Hargeysa kadibna ay dib u duqeeyeen dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa isla magaaladii ay diyaaradahaasi ka kaceen from the airport and come back to bomb the civilian population in the same city taasoo aad arkaysid qalfoofka dadkii diyaaradahaasi ay dileen oo meel kasta yaala you could still see the skeletons of the people who had been killed by those bombs which had sidaas daraadeed Somaliland waxa ay leedahay taariikh aad u muruga leh sad history balse Somaliland ayaa dalahaan uga soo dhaxbaxday taariikhdaasi inkastoo aan la aqoonsanayn hadda it has not been recognized but as we all know for a long time the People's Republic of China was not recognized balse waxaynu ogsoonahay in jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha aan muddo dheer qaramada midoobay aqoonsanayn taasi bedelkeeda waxaa la aqoonsanaa Taiwan which was recognized balse adduunka waxaa hor yimid dariiq kaliya oo xaqiiqa recognize the People's Republic of China oo ah inay aqoonsadaan jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha I have an occasion to talk marar aan ka hadlayay golayaasha caalamka sida qaramada midoobay iyo macadka loo yaqaan Chatham House ee Ingiriiska talked at the UN and I talked at the Chatham House in London waxaan si aan kaga basho lahayn u sheegay said in Somaliland ay tahay xaqiiqo aan la dafiri karin great and I will say it again and I said that Somaliland is a reality that the world has to live with that the world has to come to the reality and agree that Somaliland caalamku waa inay xaqiiqda u soo noqdaan oo ay ogaadaan iskuna raacaan in Somaliland ay muujisay dal ahaan inay u jirto will continue to survive and exist as a country and that the sooner the United Nations recognize this haddii qaramada midoobay ay aqoonsato Somalilandna cid walba way u fiican tahay the better for everybody
I know that this is not very complimentary and I will be accused of interfering in the internal affairs. waan ogahay arrintaasi inay tahay mid uu ka yimaado hadal iyo eedayn lagu tilmaamo faragelin arrimaha gudaha ee dal kale balse waxaan ogahay in qadiyadan Somaliland ay tahay mid u baahan midowga Afrika inuu wax ka qabto. But this is an issue which African Union needs to address. midowga Afrika waa inuu ka sheekaysto oo wada hadal uu ka yeesho arrinta Somaliland about the issue of Somaliland. waxa ay la mid tahay sidii midowga Afrika uu go'aanka uga gaaray Jamhuuriyadda Carbeed ee Sahrawi oo Morocco ay ku doodaysay in dalkeeda ay ka mid tahay balse midowga Afrika ayaa aqbalay xubinnimada Sahrawi ee midowga Afrika. Just like they've done with the issues of Sahrawi. halkan Somaliland So this is what should happen here. waxa ay tahay in taasi oo kale ay ka dhacdo. That the AU need to wake up to the reality. midowga Afrikana waa inuu ku baraarugaa xaqiiqada ah inaanay ka shaqaynin isu keenista labada dhinac balse ay u aqoonsadaan laba dal oo kala gaar ah. And recognize them as two separate countries. kuma hadlaya afka Jamhuuriyadda I'm Kenya. not speaking on behalf of the Republic of Kenya. balse waxaan ku hadlayaa fikir ahaantayda Raila Omolo Odinga ahaan. Yeah, I'm talking as Raila Amolo Odinga. sababtoo ah madaxweynaha Kenya waa uu idin la kulmaya. Because the president will discuss with you people, and but we are happy. balse waxaan ku faraxsanahay inaad halkan noogu timaadaan. ganacsiga labada wadana waa inuu kobcaa. Trade should thrive between these countries. markii aan Hargeysa joogay When I was in Hargeisa, iyadoo duruufo kala duwan ay all the jireen challenges, balse haddana suuqu xaami ayuu ahaa oo lacagtu waa ay wareegaysay. money was moving. And this is something where the Somalis are very good at. Soomaaliduna arrintaasi aad bay ugu fiican yihiin. Got a huge diaspora. Somalilandna waxa ay leedahay qurba joog ballaaran oo kala jooga Canada, Mareykanka, United States, New Zealand, ilaa New Zealand Australia, iyo Australia. all over the place. meel The kastaba money keeps on moving. lacagta ayay ka soo shubaan. When I was there, I just told somebody to take money to Hawala here in Nairobi. markii aan joogay Somaliland waqtigaasi waxaan qof u dirsaday inuu lacag iiga soo diro xawaalad ku taala halka Nairobi. nus saac kadibna lacagtii ayaan ka qaatay Hargeysa. And within half an hour, I received the money in Hargeisa. waana sidaas qaabka ay lacagtu ugu kala gudbi karto New Zealand ilaa Hargeysa waqti aad u kooban. sidaas ayaan u ogsoonahay in Soomaalidu ay aad ugu fiican yihiin baayac mushtarka rag iyo dumarba. That's how they move. Money moves from New Zealand to Hargeisa within a very short period of time, as you know, because Somalis are very, very shrewd businessmen and women. waxaan rabaa inaan idin yiraahdo ku soo dhawaada Kenya. So I want to tell our visitors that they're welcome to Kenya. sidaad aragteenba As you can see here in Kenya, we are working together. Kenyaan ahaan waan wada We have shaqaynaa. what is called handshake. waxaanu leenahay halkudhig loo yaqaano iskacanqaad kaasoo dhiiri gelinaya isu imaanshaha dhinacyada dagaalamaya. Bringing two warring factions together. taasna maslaxadda waddankayaga ayaa ku jira oo sidaas awgeed ayaanu ugu khasbanahay inaanu maslaxadda waddanka awgeed aanu ku wada shaqayno si uu markaasi u guuleysto hadafka guud ee dalku uu leeyahay. So Your Excellency, welcome to Kenya. madaxweyne ku soo dhawow Kenya. sharaf ayaana ii tahay inaan casuumo madaxweynaha. Now it is my pleasure to invite His Excellency to come and ayaa uu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya Raila Omolo Odinga. say jambo. Your Excellency, you're welcome.